dawada kulanto wanaagsan kuna soo dhawaada qaybta koowaad ee barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee Garqaad Media qodobada wararkan ku soo qaadan doonana waxa ugu weyn madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saaka u baxay dalka Cumaan si uu u qayb galo tacsiida suldaanka dalkaasi Suldaan Qaboos xildhibaan ganayna waxa uu nasiib daro ku tilmaamay safarada uu madaxweynaha dalka uu muddooyinkii ugu dambeysay ugu baxay isagoo sheegay in arintu ay tahay caburin siyaasadeed عمر فينيشنا waxa uu laba jeer ka badbaaday shirqool loo maleeyay kaasoo xilka loo qaadi lahaa sidoo kalena waxaa la sheegayaa inuu xayiraad ku soo rogay gudoomiyaha dhanka maaliyadda gobolka Banaadir Ibrahim Dheere guddiga doorashada galmudug ee garabka xafna waxay soo saareen jadwalka doorashada iyagoo ku sugan magaalada Galkacyo qalbi dhagaxna waxa uu markii ugu horeysay sidoo kale ka hadlay in doorashadii madaxweyne Farmaajo uu arag u qalay balse uu sheegay inaysan noqon arrintaas oo uu sheegay inay noqotay qof kuusan filaynin qodobadaas iyo waliba qodobo kale aynu barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa sidoo kale barnaamijkeena qaybta labaad ee aanu saacado kun yar kadib soo gelin doono isagana waxaan ku soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay dhanka arrimaha caalamka iyo bariga dhexe waxaanu ku falanqeyn doonaa xiisadda bariga dhexe iyo waliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ee caalamka anagoona markasta isku dayi doona in daawadayaasheena aanu ka xaqabtirno wararka gudaha iyo waliba kuwa dibadda haddii aanu ku bilowno faahfaahinna wararkaasi madaxweynaha dalka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu saaka u baxay dalka Cumaan si uu u qayb galo tacsiida qaran ee u taala shacabka iyo waliba saldaanada dalkaasi Cumaan sida wararka sheegay madaxweyne Farmaajo ayaa diyaarad qaas ah saaka ka qaaday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho isagoo ku sii jeeda caasimadda Muscat madaxweyne Farmaajo ayaana ka mid noqon doona masaax ka socota caalamka oo ku qulqulaya dalka Cumaan si uu u qayb galaan tacsiida qaran ee loo sameeyay Suldaan Qaboos bin Saciid Al Saciid oo maalmo ka hor ku geeriyooday dalkaasi labadii maalmood ee soo dhaafay ayaa waxa gaaray dalka Cumaan madax ka socota caalamka waxayna ka tacsiid gudanayaan suldaanka cusub ee Soo Cusmaan dalkaasi ee suldaanka kaas oo loo magacaabo Cumaan Suldaan Hasiim bin Tariq Al Saciidi kadib geeridii ku timaaday Suldaan Qaboos suldaanka oo ah hogaamiyihii ugu xukunka dheeraa ee carabka ayaa waxa uu talinayay in ka badan muddo 50 sanadooda balse isbuucii la soo dhaafay waxa uu ku geeriyooday gudaha dalkaasi Cumaan ayaana waxay ka mid tahay dalalka khaliijka kuwada ugu hodansan iyadoona ku tiirsan soo saarista shidaalka iyo waliba arrimo kale waxayna ka mid tahay wadamada sida aadka ah ugu dhow Soomaaliya oo ay saaxiibo dowlad tahay madaxweyne Farmaajo ayaa safarkan ka horreeyay waxa uu ka soo laabtay dalka Eritrea halkaas oo uu kala kulmay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Ciise Faaki labada madaxweyne ayaana ka wada hadlay arrimaha ku aadan xiriirka labada dowladood iyo waliba arrimo kale oo iskaashi ku aadan saddex geesoodka dhankalna xildhibaan Maxamed Xasan Idriis xildhibaan Ganay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay ku xadgudubtay dastuurka waliba xorriyatul qowlka isagoo wax lala yaabo ku tilmaamay in dowladdu isku dayday inay joojiso khudbad uu arday Soomaaliyeed u jeedin lahaa siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku sugnaa dalka Malaysia xildhibaan Ganay ayaana sheegay nidaamka dowladnimo uu noqdo mid ay dad gaar ah ku shaqeystaan oo lagu dhibaateeyo ummadda Soomaaliyeed haykalkii dawliga ahaa in lagu dhibaateeyo ummad oo dad gaar ah ku shaqeystaan waa nasiib darro haddii ciidankii iyo waliba safaaradii meel walba dana gaar ah loo adeegsanayo waxa uuna sheegay in safaaradaha dalka dibadiisa ku yaala loo adeegsanayo in lagu dhibaateeyo siyaasiyiinta ka aragti duwan dowladda waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi ay reebi doonto raad cusub oo aan fiicneen safaaradii dalka dibadiisa ahaa in siyaasiyiinta dowladda ka aragti duwan lagu dhibaateeyo waa aragti cusub oo dalkan lagu soo kordhiyay waxayna reebi doontaa raad cusub ma wax la qaadan karo dalkan meel aanu ka soo laaban karin la gaarsiiyo xildhibaan Ganay ayaan ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in talaabo ka qaado kasta oo falkaasi ka dambeysay ama dowladdiisa waraarigelin ka bixiso warqad ay qortay safaaradda Soomaaliya ee dalka Malaysia ayaa looga dalbaday booliiska dalkaasi inay joojiyaan munaasabadda siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kula hadlay Soomaaliyeed oo dalkaas wax ka baratay iyagoona isku dayay uu fashilmay dowladda Soomaaliya ayaana dhowr jeer oo hor istaag ku sameysay munaasabada uu hogaamiyaha xisbiga wadajir ku qaban lahaa dalka gudihiisa iyo waliba dibadiisa waxaana isla soo tarayay caburinta gaarka ah iyo waliba beegsiga dowladda ku haysay siyaasigan tan iyo wixii ka dambeeyay bishii December sanadkii 2017 oo ciidamada dowladdu weerareen guri uu deganaa kuna dileen ilaa 6 askari ilaa 6 askari oo ilaalaha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame kuna soo xireen inkastoo markii dambe ay maxkamadda sii daysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
waxay arrintani sidoo kale dhashay baraha bulshada in looga hadlo iyadoona dadka inta badan ay aad u falanqeynayaan arrintaas. dhanka kalena gudoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho ayaa 2 jeer ka badbaaday sida aanu xog ku helnay in xilka qaadis lagu sameeyay kadib markii dacwad laga geeyay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Farmaajo. xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhow madaxtooyada kuna carooday cunaqabataynta uu ku sameeyay Cumar Finish ayaa Ra'iisul Khayre kula taliyay in xilka laga xayuubiyo gudoomiyaha gobolka banaadir maadaama uusan ku shaqeyn barnaamijka xukuumadda nabad iyo nolol. gudoomiyaha Cumar Finish ayaa siyaasiyiinta weliba xildhibaano badan lacago baada ka qaadan jiray gobolka banaadir ka joojiyay kuwaas oo ku raaxaysanaya hoteelada ku yaala magaalada muqdisho, waxayna dhowr jeer shakhsiyaadkaasi u diyaariyeen shirqool qorshe ah oo xilka looga qaadan lahaa gudoomiyaha balse uu ka badbaaday. sida ay sheegayaan wararkan helayno awoodda gudoomiyaha gobolka Cumar Finish ayaa la xadiday waxaana xukunka maamulka gobolka banaadir gacanta loo geliyay gudoomiyaha xukunka gobolka maaliyadda gobolka oo saaxiib dhow la ah Xasan Cali Khayr. Cumar Finish ayaana marar badan ka badbaaday dana dakhli karay in xilka looga qaado kuwaas oo ay uga dhigeen mas-uuliyiinta ka tirsan gobolka banaadir. duqa muqdisho ayaana xilkan loo magacaabay kadib markii uu geeriyooday gudoomiyaha gobolka banaadir Engineer Yariso. sidoo kalena wararkan helayna ayaana sheegaya in sidoo kale 2 maalin uusan xafiiska gobolka banaadir uusan ka shaqeyn gudoomiyaha ku-xigeenka galanka maaliyadda gobolka banaadir Ibrahim Dheere kaasoo la sheegayo in isku dhac isaga iyo weliba Cumar Finish uu jiro taasoo ku aadan awoodda labada dhinac. waxaana arrintani ay gaartay heer la isla gaaro xafiiska wasaaraha iyo weliba madaxweynaha inkastoo ilaa iyo hadda uu Ibrahim Dheere ka xadidan yahay soo gelista xarunta gobolka banaadir oo uu Cumar Finish ku sheegay inuusan wax u lahayn awood inuu soo galo gudaha isla markaasna lagu wargeliyay dhammaan balaamaha amniga inaysan soo geli karin gudaha xarunta gobolka banaadir Ibrahim Dheere. arrintan ayaana ku soo aadaysaa xilli maalmihii ugu dambeysayba ay jirtay arrin ku aadan isku dhacyo dhinacyo. dhanka kalena guddiga doorashada galmudug gaar ahaana garabku magacaabay madaxweyne xaaf ayaa waxay soo saareen jadwal cusub oo ku aadan doorashada guud ee maamulkaas. warqadu ka soo baxday guddiga ayaana lagu shaaciyey in doorashada guddoonka baarlamaanka ay dhacayso 25 bishan Janaayo 2020. sidoo kalena waxaa qoraalkan lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha ay bilaabanayso ilaa 27 bishan kadib doorashadii madaxweynaha cusub la qaban doono 1 bisha soo socota sanadkan. jadwalka ayaana ka mid ah ka duwan kii ay soo saareen guddiga farsamada ee dowladdu magacawday kaasoo ka howlgala magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. arrintan ayaana sababi kartay in Galmudug ay yeelato 2 madaxweyne haddii aan xal rasmi ah laga gaarin ololaha iska soo horjeeda ee ka socda Dhuusamareeb iyo weliba Gaalkacyo. madaxweyne xaaf ayaana waxa uu u muuqdaa mid qaatay go'aan adag oo ka duwan kan uu Ra'iisul Khayre kaga dhawaaqay magaalada Dhuusamareeb. arrintan ayaana waxay noqon kartaa caqabad cusub oo soo wajahda doorashada cusub iyo walaanka hanaankii doorasho ee Galmudug taasoo muddo 8 bil ah loo fadhiyay magaalada Dhuusamareeb. qancinta ahli sunna iyo weliba odayaasha dhaqanka ee beelaha dega Galmudug ayaa waxa ay qaadatay muddo 8 bilood ah iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay waqti iyo weliba kharash badan arrintaasi. waxayna arrintu muuqataa in madaxweyne xaaf uu horay ula heshiiyey dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya inay soo kala dhexgaleen caqabado cusub isaga iyo weliba xukuumadda taasoo ku dhalisay ama qaadatay go'aanka ah in la dhiso guddoon cusub iyo weliba sidoo kale maamul cusub laga barbar dhiso maamulka ka dhismaya magaalada Dhuusamareeb. ugu dambeyntiina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ayaa bixiyay wareysi uu kaga hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah kuwaas oo qusaya xarigii weliba qaabkii dowladda Soomaaliya ugu dhiibtay Itoobiya. Qalbi Dhagax oo haatan hoggaanka garsoorka Ahlu Sunna hoggaanka garsoorka Onolef ayaa laga qabtay hotel ku yaala koonfurta Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug muddo 3 maalmood ah ay ciidamada sirdoonka Soomaaliya ku hayeen magaaladaasi iyadoo kadib u soo wareejiyay magaalada Muqdisho. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xarigii weliba dhibista Itoobiya ku fasirtay inuu maleegay falal argagixiso Onolef ka fulisa Soomaaliya walow eedeyntaasi ay beenisay jabhadda xoreynta Onolef. qabashada iyo weliba dhiibista Qalbi Dhagax oo barmadow ku noqotay dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa ka dhiidiyay shacab fara badan oo gudaha dalka iyo weliba dibadda ku nool. isagoo u waramayay TV-ga SSTV Qalbi Dhagax ayaa sheegay inuusan marnaba
ku fekerin in dowladda farmaajo ay muwaadiniin Soomaaliyeed u dhiibto cadowga Itoobiya, iyadoo noqotay arrintaasi mid inta badan lagu eedeeyo madaxweyne farmaajo, walow uusan weligii la kulmin, sababta uu ku sheegay inuu ka mid ahaa shakhsiyaadkii uu leeyay in madaxweyne farmaajo loo doorto madaxweynaha Soomaaliya doorashadii bishii Febraayo 2017. wuxuuna yiri xitaa mararka qaarkood waxaan geelayay meelo sirdoonka Itoobiya ku jiro, waxaa jirta in xildhibaano ay diigeen oo ay yiraahdeen shaqadan aad wado khatar bay kugu tahay, haddana waan gelayay. Isagoo si hadlay ayuu Qalbi Dhagax waxa uu sheegay in uu aaminsanaa in farmaajo yahay hogaamiye daacad oo dadka iyo weliba dadka xoreyn kara oo dibna u dhisi kara dalka, balse muu noqon madaxweyne aan filay ayuu yiri. Culimada ayaana fariisiyay, quraan ayaa bilaabay 3 jeer ayaan quraanka u dhameeyay dartii markii uu dambeysay si uu u soo iibiyay ayaan u qatimay quraanka ayaan u soo iibiyay si aan u qatimay quraanka wuxuuna ku daray mayhi nin qaraabo kaliya waxa iga ahayd Soomaalinimo iyo waxaan raadinayay qof leh awood iyo karti dalka dib loogu xoreeyo, waxaana isla shaqadii loo igmaday waa uu dhinac maray madaxweyne farmaajo. ila wareedyo ayaan xaqiijin Qalbi Dhagax habeenkii laga qabtay Gaalkacyo maalintiisii uu ka soo duulay Muqdisho, halkaas si weyn loogu baaray isla markaasna muddo daqiiqadaha lagu hakiyay si isbitayn ayaan ku aaday Gaalkacyo, iyadoo shaki badan uu igu jiray maalintaas. waan ka baaqan lahaa laakiin shaqo halgan ah oo ka fuuqsan waayay ayaan ku jiray ayuu yiri Qalbi Dhagax. wuxuuna Qalbi Dhagax sheegay in arrintaasi ay sababtay in sirdoonka dowladda dhexe federaalka Soomaaliya ay ugu yimaadaan gudaha magaaladaasi isla markaasna ay qabtaan, iyagoona marar badan su'aalo badan weydiiyay. muddo 3 maalmood ayaana lagu hayay gudaha magaaladaasi. wixii intaas ka dambeeyay wax la soo wareejiyay magaalada Muqdisho oo la isoo gudbiyay dalkaasi Itoobiya oo markii dambe la gacan geliyay buuya dalka Itoobiya ugu dambeyntii. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.